bismillaahi raxmaani raxiim. qaybtan waa qaybtii saddexaad. waxaan ku arki doonaa waa maxay windows. marka qaybii horeeto waxaan kusoo sharaxnaa iconskii wixii kala ahaayeen. markaa daartaane one by one ayaanu arki doonaa. introduction to windows. waa maxay window. marka intaan window fahmin ka hor waxaa muhiim noo ah inaan fahno waa maxay computer. what is a computer? waa maxay computer? computer waa aalad ku shaqeysa quwadda korontada, awoodna u leh inay xogta amba warbixinta aqbasho input, shaandhayso process it, soona bandhigi karta waa output xogta amba warbixinta la siiyey. sidaan wada ogsoonnahay computerka waa aalad ku shaqeysa quwadda korontada, awoodna u leh xogta iyo warbixinta inuu aqbali karo. waxa aqbalaya waxa waaye inputka. for example, xog iyo daato ayaa computerka u dhiibatay, waxbaa ku save garaysatay, feelala ku save garaysatay, waa inuu kuu kaydin karaa. marka waa inuu kuu aqbalaya horta xog, waa inuu haddana kuu soo bandhigi karaa. waa outputkii waaye, yacni usoo bandhiga wuxuu kusoo bandhigaa documentiya kugu diyaarsan. documentiga printia u baahan tahay inaa ka daawacata u baahan tahay, amba video amba waxbaa kugu duubatay, videodii inaad dhegeysataa oo rabtaa, codad inaad dhegeysataa rabtaa. waxaasna waxawaaye output aa lahaa, yacni wixii ku keedsatay ayuu kusoo bandhigaa. haddana process it, haddana uu kala shaandhaya. kala shaandhayntu yani wax ma isku qasayo. bishan January waxbaa ku save garaysay daato, February daato kaleeta ku save garaysatay. daatooyinka ma isku qasmayaan, meel allaala yacni meesha dhigatid iyo wixii ay tahay sida ay tahay ugu meesa process it waaye. marka intaasoo shuruud markii la helo ayaa waxaan leenahay kani waa computer. laakiin asal kuwaad waa waxyaabaa ku shaqeeya korontada. koronto la-aan asaga computerka ma shaqeeyahay. intaas waxaan u gudbaynaa waa maxay computerka si kooban haddaan iyaan ku fahno. windows simaad. marka sidaa ogsoonnahay window iyo computerka farqi weyn muu dhexeeyo, lianna computerku markii la shidabo waxa kuwad oo soo kacay waxaa lahaa window. macnaha computerka haddii uu soo kaco amba window haddii uu soo kaco waa isku mid, isku meaning waaye. marka computer iyo window wax weyn ma kala duwanaa. introduction of MS Windows. MS waa Microsoft Windows waa laga wadaa. waa kana marka Microsoft Windows waxaan dhahnaa waa software lagu shubo computerka kaasoo ku shaqeeyo. marka window haddaa aragtid waxa computerka ku shaqeeyo, mobileka sidoo kale taasna wuu ku shaqeeyaa. waxaa lahaa windows la-aantiisa marka mobilekana ma shaqeeyahay, laptopkana ma shaqeeyahay amba computerka. waa kaa marka windows la-aantiis computerka ma ku shaqeynayo. haddii aan window ku shubin computerka kuma shaqeeyo. marka window waxaa waaye waxa computerka ku shaqeeyo oo asalka u ahbo, yacni waa window waaye. sidaa darteed marka packagekii markii aan soo sheegnay waxaan ku bara doonaa softwarekii window ugu dambeeyey oo lahay window 10. windows 10 aan ku bara doonaa. window 10 waa latest versionka ugu dambeeyey waaye. marka 2015 asagana oo soo baxay 2015 marka vershano kala duwana window jira, laakiin windowgaan bara doono versionka ugu dambeeyey waaye. intaan oo cadeyso versions of window inta si fiican u fiiri. laga soo bilaabo 1985 ilaa 2015 inta u dhexeysa waxaa soo baxay windowyo kala duwan. windows 1.0, 2.0, 3.0 ilaa iyo windows 10. marka anaga muhiimadda kalena waxa waaye leenka ugu dambeeyo window 10. windowgaas ayaa bara doonaa. marka windowga marka tusaale waxaa kuu filan computerka markuu soo kacayo ilaa uu kadamayo inta u dhexeysa xogta amba warbixinta lagu shaqeeyahay activitygaas oo dhan, yani waxbaa window waaye. shardigana ogaa window computerku la-aantii ma shaqeynayo. marka maxaa kamid ah marka windowga waxyaabaha ku bara doona waxaa kamid ah tusaale waa kana taano nashadaan computer.